الله ونحرستي ميت كجنرال عثمان شيخ علي بدمعي أيام مانتا laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada Muqdisho waxaana marxuumka oo loo sameeyay aas qaran salaada janaasada lagula tukaday masaajidka isbahaysiga islaamka ee Muqdisho iyadoo tukashada salaada janaasadana ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda waxaana salaada kadib meydka marxuumka loo qaaday qabuuro ku yaala degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir halkaas oo lagu aasay aaska kadib ayaa kulan gaar ah oo looga hadlayay taariikhda marxuumka Generaal Cusmaan Sheekh Cali Badmaceye sidoo kalena loogu tacsiyeynayay ehelka marxuumka waxa lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ugu horeyna taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Axmed Jimcaale Geedi Cirfiid ayaa si kooban uga hadlay taariikhda marxuumka waxaan halkan isugu nimid maanta inaan ka tacsiyadeyno geeridii ku timid Allah u naxariistay Generaal Cusmaan شاهد هذا واحد يركي راهدو بسراكيشي هراء حوق الدولة الصومالية ننظرها حقول شعادله كن سجال بقول صدني سديتي معلن أيو نقضي مركي أو حبار شديد سلام يستي كدبنا وهو رجع ترتن مركي أو قلي عيدن كحوق الدولة الصومالية مدبر يا سوود شقينت تدواتن كي كن سجال بقول تدواتن كي أنت أنا كا أن جورجوك كأها ما ربنا أيو كسر شقي مدافع ذو بدنا وها مدبر مدح وكان كمدافع ذا تلي أورو سامري تلي قيب وحسامر باندول قيب وحسامر تلي أورو بدن أو كلا دون رونهانتي سركال عاد وقيمة بدنوها رئيس الوزراء هوري الصومالي علي محمد جيدي ayaa uga mahad celiyay xubnaha kala duwan ee dawladda qaabka ay u fududeeyeen aaska marxuumka waxaa la soo istaajiyay inaan u mahad celiyo dhammaan xoogagii fuliyay munaasabada sharafta leh ee sagootinta Generaal Cusmaan Sheekh Allah u naxariistay in qabrigiisa la geeyo in maaragtay eheladiisa la maxabeeyo in caruurtiisii la maxabeeyo munaasabada gabagabadeeda ayaan filayaa inay halka madaxdu u timiday kulligeena aan u nimiday sidaas daraadeed waxaan leenahay Ilaahay jannada ha ka waraabiyo Generaal Cusmaan qabrigiisa Allah u waasiyo Allah u iftiimiyo samari iimaan Allah naga wada siiyo dhamaanteen meel kasto aan joogno hadan Soomaaliyahay ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in marxuum Cusmaan Sheekh Cali Badmaceye uu ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo dalka u soo qabtay howlo kala duwan waxaana uu si gaar ah ugu tacsiyay qoyska uu marxuumku ka tagay ugu horeyntii waxaan halkan ku bilaabayaa oo aan tacsiyo u dirayaa eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday generaalkii taariikhdiisa iyo sharaftiisa halkan lagu sheegay waxaan leeyahay Ilaahay samri iyo iimaan ha idinka siiyo waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa caruurtii uu ka tagay Maxamed iyo Mulki iyo Xamdi Aamina Cabdulcasiis iyo Sahra iyo dhammaan eheladiisa waa idinkaga tacsiyeynayaa waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad la qaybsateen qaranka waan ogahay inuu habeeno badan idinka maqnaa bilo badan idinka maqnaa uu idinka soo daahi jiray isagoo difaacaya dalkiisa iyo qarankiisa waan ogahay inaad isaga u hibaysiin qarannimada Soomaaliyeed waan idin la xanuunsanaynaa in aan halkan idinkugu nimaadno waan idin mahad celino waan idin tusano dareenkeena waa inta ugu yar oo qaranka xaq ugu leedahay الله ونحرستي مرحوم جنرال عثمان شيخ علي بدمعيه ayaa dhawaan ku geeriyooday dalka Mareykanka kadib markii uu il muddo halkaas ku xanuunsanaa xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho